Zainab Cabdiraxmaan waa hooyo 45 jir kuna nool xarada qaxootiga xagar dheere shantii sano la soo dhaafayna waxay dhaqanaysay shimbiraha si nolosheeda ay uga soo dhacsato qoligaalada la qoligaaladana dhaqaaleena meeshaneete muddo 5 sano aan dhaqaaleenaya 5 kiilo xataa maalinta wax uma tarto yaani sidii erigeygii iyo geelkeygii ilo odeydii waa markaan gataan hilib helaana waan gataa lacag anaaba helabo 10 xabadaan ka ku shil haystaa ama 1500 haystaa dhaqashada shimbiraha waa mid naadir ku ah bulshada Soomaalida Zainabna waxay aaminsan tahay in geela oo la dhaqdo ay la mid tahay dhaqashada qooleyda iminka halkan ay ku dhaqato hadda waa 1320 tiradooda mar aan xayawaan walba waxa uu leeyahay dhaqan u gaar ah Zainabna waxay baratay dhaqamada kala duwan ee qooleyda halkan ay ku dhaqato hadda saan waa u dhigay 6 saac way rabaan galabtii markay xaroon rabaan way rabaan bishii waxay dhalaan 2 mar marna ukun ay ku fadhiyaan marna isbursanayaan cunugii qoodinayaan hadda u yeeraya marka hadda xanuunsato hadda maxaa arkaysa inay iskala boobayaan soo markaynin gooni u istaagaysaa markay xanuunsato gooni u fadhiisanay raaxa ma qabto yaani ma fircoona adi waa dareemaysaa marka taas inay yaani sidii hore aysan ahayn marka kaniini u raadinaysaa kaniinigan bini aadanka u cuno taasaan siiyaa waan u qasaaya afkan ugu shubaa habeenkii waxay ii sheegtay in waardi culus ay u gasho ka ilaalinta xayawaano kale oo xilliyada qaar soo weerar tago sidoo kalena waxay iiga sheekaysay in ay caqabado fara badan kala kulanto dhanka dhaqanka Soomaalida ayagoo qaarkoodna aaminsan in xayawaan dhaqashada noocan oo kala ay tahay la shaqaysiga jinka bulshada kale wallahi qaar waa iska kiicaynayaan qaarna muxuu ahay waxay dhahayaan qof walba dadna geelay dhaqaaleystaan loo ay dhaqaaleystaan haddii dhaqaaleysanayso qooleyda maxay idin ku diray qofka shakhsigiisa lama gala faraa iga ka qaada qaarna waxay leeyihiin adiga waxay aaminsan tahay inuu sheedaan ay ka cilinayso sheedaankii bay muxuu ahay sheeg adiga iska cilinay yaan yur idabacday daraadeeda banaankaanite aan ku ilaalina habeenkii shandarwooyinkaan taagana ani iyo ilmeyga intaan seexana qooleyda daraadeeda Soomaalidu waxay caado u leedahay dhaqashada saddexda caana macaan geela looda iyo ariga hawshan iminka ay Zainab ku jirtana waa mid Soomaalida aqoon buuran aysan u lahayn naadirna kuwa dhaqashadooda balse Zainab ayaa waxay aaminsan tahay hawsha iminka ay ku jirto inay tahay mid kaliya nolosheedu ay ka soo dhacsan karto xilligan adag ee xariyaha qaxootiga ay ku jirto Maxamed Faarax Shire VOA xarada qaxootiga xagar dheere